مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. السلام عليكم kusoo dhawaada channelkayga Modern Somali Food maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago cuntada aadka quruxda badan maadaama aynu ku guda jirno bisha barakeysan Ramadaan waa afur aad u fudud oo aad cuni kartid afur ahaan casho ahaanna waad u isticmaali kartaa waa cunto caafimaad badan maasha Allah tabaaraka raxmaan ovenka ayaa la geliyay wax saliid ah ama wax oo oily ah ma laha sidaa quruxda badan ayay inoo soo baxday cuntadeenu ما شاء الله تبارك الرحمن وعنتدا يعني إيش تكبوجانيسيد أنت جودة جلين هذا الشانل كي يكون عصب تهاي فضلا سبسكرايب إيسار هذه كلنا إهل كاجا أصحاب هذا اللي وذاك سيدنا دقيقة قصة ما يصير نمر كوكو رسوا حنو بهنا كوب عان أو قندعة هل كوب عان أو قندعة وحين كنت دريا من القاعات في حساء قرار قدوش أيان دين سو صار دونا دويلا هاي رعضو سيادو أركتان دين كنا سيدو كلا وحا أن كنت دريا لبا من القاعدات أو سنكر marka waxay ka kooban tahay hal koob oo caano qandac ah hal qaado oo khamiirada laba milqacdo sankar yar oo milix ah waan daboolayaa 10 daqiiqadood meelaha waxaan sugayaa intuu khamiirku soo kacayo kadibna waxa aan ku darayaa 2 koob oo daqiiq ah ama 2 koob oo bur ah qofba sida uu u yaqaano waanad ka kordhin kartaa laakiin anigu qiyaastan imka idin haya waa inta xabad beed ah ama xabad ukun ah ayaan ku darayaa maadaama la sameeyo waxyaabaha yani aad cunayso waa waxyaabo nafaqo leh ay ahaato marka beedku aad ayuu ugu fiican yahay ma ukuntu daqiiqda waxay ka dhigaysaa daqiiq jilicsan oon yani qarfad ahayn sidoo kale waxaan ku daray 2 milqaacadood oo subag ah ama saliid ah wixii aqalkaaga ku yaala ayaad isticmaalaysaa haddii Ilaahay yiraahdo koob barkii oo daqiiqa ayaan ku xashayaa marka hore 2 koob daqiiqa maadaama ay ahaayeen yani jileec ayuu iga yara noqday marka 2 koob iyo badh markii hore waan kariyay inaan ku wada daro laakiin badanaa waxaan sameeyaa anigu marka hore 2 koob ayaan ku shubaa marka dambe aan xashiyana koobka badhkiisa ayaan u isticmaalaa inaan ku xasho oo ku adkeeyo daqiiqdeeda kadibna waad yara daboolaysaa bac ayaa dusha kaga xidhaysaa waana sugaysaa ilaa intay kaaga soo kacayso badanaa waxay ku xidhantahay jawigu siduu yahay waxayna ku kacdaa badanaa meelaha nus saac kadib ayuu ku soo khamiiradu ku soo faaxaysaa imka waxaan sameynayaa wixii aan gudaha ka gelin lahaa basal iyo muxuu ahaayay digaag aan soo yaryareeyay weeyaan digaaga waxaad yani intii adigu aad awoodo ayaad ku daraysaa anigu imka waxa weeyaan kiilo barkii meelaha 500 gram waxaan ku darayaa 1 teaspoon of garlic ama hal milqaacad oo toon ah ayaan ku darayaa dabkana waan ka khafiifinayaa waxaan doonayaa intuu digaagu yani iga bislaanayo biyaha isaga ayay ka dhasheen anigu wax biyo ah oo aan ku daray ma jirto milqaacad basbaas cas ama nooca paprika loo yaqaano ayaan ku darayaa waa milqaacada teaspoonka ama aynu isticmaalno shaaha in yar oo waxaan ku darayaa milixa iyo filfil ama black pepper sidoo kale waxaan ku darayaa barbarooniga cas haddii aad haysato barbarooni midab kalena waad ku dari kartaa anigu maanta kaas baan hayay marka kaas baan yani jeclaaday inaan ku daro dabka mar walba markaad sameynayso khafiif ha ku ahaado intaas oo kaliya ayuu ka kooban tahay yani daqiiqdiina maasha Allah way soo faxday 3 daqiiqo ayuu ma sugayay marka iminkana waxaad ila aragtaan sida aan u sameyn doono cuntadii aan muuqaalkeeda markii ugu horeysay aan idin tusay asxaabay sidaad arkaysaan ba daqiiqda marka hore waan fidinayaa waxa aan ka dhigayaa in ay leekaato pizza pan ama bahasha pizzada loo isticmaalo ayaan doonayaa inaan yani saaro marka waa inaan marka hore fidiyo qiyaasta aan rabana waxa ay noqonaysaa sidan haddii aad isleedahay way kaaga dhigi doontaa waxa la isticmaalaa baking sheetka ama waraaqda marka wax la ovenka la garinayo loo isticmaalo ayaad pizzada traygiisa ka dul saaraysaa cuntadii aan markii hore sameeyay soo qabowday aan qaboojiyay ayaan imika dusha ka saarayaa haddii xagga anigu aan digaaga ka sameeyay hilib duqada ayaad ku bedeli kartaa insha Allah video kale ayaan idin tusi doonaa qaabka hilibka duqada isagana aan ugu sameeyo ramadaanta haddii Ilaahay yiraahdo marka waa inaad hareeraha oo dhan ka wada gaarsiisid si dheeli tiran
ما شاء الله وأنا تكون هالسنتين مر لبعض يا مر صدق هذه ما أفراد صاد مر والبإيدي رجلسان أنا إن يرو تشيسة أيان دوشة كقدر يا لكن هو optional هدي أنا دوح تشيسة موحفاد لا أنا دربين وضايد كشرته تشيس كإسكدا أيان كورا لها لكن أنا وحن شعل استي إنان يعني تشيس كدر صدق مانتا cuntadan casho ahaanna waad u isticmaali kartaa iyadoon ramadaan ahayn caruurtana waad siin kartaa waliba caruurta markaad siinaysiin yacni cheeska faadka badan leh imka kalaydkan ku darsada anugu laakiin cheeska full faadka ayaad ku darsanaysaan hadduu ilaahay yidhaahdo marka imika waxa aan soo lawaxay qaybtii labaad ee aan dusha ka saari lahaa ilaan haddii aan markii sida kale caadi ahaa ku geliyo pizza iga noqonaya marka waa inaan daboolo si ay yacni roodhi qurux badan oo يعني دمايستيران ايغو soo baxdo marka laba xabo ayaan sameynaa imka waxbad qaybtan idin la wadaagay daqiiqda intii ama burka intii kale hadheen xagaas ay itaala xabad labaad ayaan ka sameynaa hadii ilaahay yiraahdo marka si fiican waa inaad u dabooshid hareeraha aad yani qarisid egg yolk baan marinaya iyo saliid yani beedka intiisa ama ukunta inta yelowga ah oo in yar oo saliid ah saa ugu soo qasay ayaan dusha ka marinayaa waxayna ka ilaalinaysaa inuu qallayl noqdo ama ay yani ofinku u adkeeyo ayay ka ilaalinaysaa midab dahabiyana u sameynaysaa sisin dusha kaga daraya ama sesame seed sisintu aad bay caafimaad kugu fiicantay markastood wax ofinka gelinaysa ama baking wax sameynaysidna waa inaad ku dartid sidoo kale xabatu sooda ama xabatul baraka ama black seed qofba sida u yaqaano ayaan dusha kaga sii darayaa intaas ayaan ofinka gelinayaa markastood ofinka dadka ofinku iyadoodu way kala duwan yihiin laakiin anigu badanaa meelaha ofinka markaan geliyo waxaan ku daayaa nus saac laakiin kullaba waad sheegaraynaysaa sida aad arkaysaana waa ii soo baxday maasha Allah tabaaraka raxmaan keeg baa la moodaa laakiin maaha waa afur aad u fudud ama casho ahaan ayaad u isticmaalaysaa wixii adigu aad jeceshahay sambusaha meeshiisa xataa ku bedelan kartaa waqti badanna kaama qaadanayso dhadhankeeduna aad ayuu u macaan yahay وانا aad bay u jilicsantahay waa soft sababta aan beedka ugu darayna weeyaan inay yani soft ii noqoto markii aan daqiiqda ama burka xashanayay ما شاء الله تبارك الرحمن sidaad arkaysaan bay soo baxday kalar aad ku cajabinayo qurux badan weeyaan fiidooyo kale oo badan oo qurux badanna waan noo soo wadaa intaan ku jirno bisheena barakeysan ee Ramadaan imika waxaan idin tusayaa sida ay soo baxday yani final piece-ka anigoo yani qadimayaan idin tusayaa fiidooga markaa intii hore waxaan duubay yani haddana waan joojiyay inta kalena waxaan duubay bacda afurkii marka imika dee waa inaan idin tusaa dhadhankii markaa waxaan sugayay ilaa intaan ka afurayno marka waa xabadii labaadan sameeyay baan dib u dhigaysaan afurka kadib idinku duuboon idinku tuso ma sha Allah tabaaraka raxmaan saasi soo baxday اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار إلهي انت عن حيسن هسي انت حيستني الله وسياديها وبركيه في ذوقا كوحيقا وحربا إنا فضائر كسان والسمية إذن لو ذاقو سأتصورك كأركيسان إن شاء الله هذا يدو مهد سنتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما جرو هوس روحو جيا أما بخوركو كحيا نفتع عذاهو كانشا أبا هيك نديدا هل كادو جهي سوي kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dhara